waa kuma Sheldon Adelson. Sheldon Adelson waa hantiile weyn oo ka soo jeeda waddanka Mareykanka gaar ahaan gobolka Las Vegas. Sheldon waxa uu dhashay 1933 August 4-teedii. Wuxuu ku dhashay isla magaalada Las Vegas, waana ganacsade ka soo ulkamay gobolka Las Vegas. Sheldon wuxuu cadaawad daran u hayaa wadamada Carabta. Waxaa hantidiisa lagu qiyaasay 3.7 bilyan, halka hantidiisa maguurtada ay tahay 12 bilyan. Haddaba ninkan ayaa aad u maalgeliyay musharaxiinta ka soo jeeda Mareykanka iyo Israa'iil, isagoo doonaya inuu dahdabadiisa ka maamulo. Laga bilaabo 1990 ilaa 2020 wuxuu qarash gelinayaa siyaasadda labada waddan ee Israa'iil iyo Mareykanka, lacagtaasoo lagu qiyaasay inay kaga baxday 2 bilyan. Sheldon waxa wareysi weyn oo heer caalami ah lagu weydiiyay in lagu soo eedeeyay inuu ka dambeeyo hubka u taga jabhadaha ka dhisan wadamada Islaamka, balse isagu taa uu diiday, uu iska fogeeyay eedaynta loo soo jeediyay. Laakiin waxa xaqiiqa Sheldon inuu aad u neceb yahay wadamada Carabta, waliba guud ahaan Islaamka oo dhan. Waa 83 jir, caqligiisa iyo xuduudiisa isugu geeyay sidii Islaamka uu burburin lahaa, gaaladana hanti fara badan ugu samayn lahaa. Wuxuu saaxiib dhow leeyahay madaxweynaha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo sidoo kale dhigiisa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, isagoo dabada ka riixayay kana dambeeyay heshiiskii ahaa in magaalada Qudus laga dhigo safaaradda Mareykanka. Wuxuu ahaa raggii ka dambeeyay fikradda ugu weyn isaga ayaa iska lahaa, oo dabada ayuu ka riixayay. Benjamin Netanyahu iyo Donald Trump waxay u arkaan labadooduba inuu soo sadeexeeyo ninkan uu wadamada kala taliyo, waayo dhamid waliba uu fuliyaa go'aanka uu dhiibo. Wuxuu qayb laxaad ka ahaa maskaxdii afka dhulka u dirtay waddanka Liibiya, taasoo ahayd inuu ku taliyay isagu markii ugu horeysay in kaydka laga qabsado shidaalka Colonel Muammar al-Gaddafi. Sidaas haddii ay dhacdo, wuxuu yidhi waa uu guuldareysanayaa Muammar al-Gaddafi. Ugu dambeyn wuu ku guuleystay fikirkiisii, waana guuldareystay Colonel Muammar al-Gaddafi iyo shacabkiisii Liibiyaba. Haddaba Sheldon mar la weydiiyay dhowr jeer lagu soo celceliyay jabhadaha uu hubeeyo, ayaa waxa uu ku jawaabay anigu ganacsigayga oo hubeeyo mooyee anigu ma hubeeyo. taasina waxay cadaynaysaa inaan caadi u hubeeyo uu leeyahay. Waxaa ifka ku weheliyay qoys ka kooban 6 qof, 1 xaas iyo 5 caruur ah oo 3 ka mid ah yihiin rag, halka 2 kale ay yihiin haween. Cadaawadda Sheldon uu qabo Islaamka marka loo eego Donald Trump uu qabo Islaamka, Donald Trump waxay noqonaysaa maad iyo qosol. nacayb kaliya kuma eka, siyaasad kaliyana kuma eka, waa ganacsadaha adduunka ugu weyn ee lacagtiisa 40% geliya hubkaas oo uu ku hubeeyay ciidamada Mareykanka iyo ciidamada Israa'iil. wuxuu master degree ka qaatay jaamacadda Las Vegas International University. kulliyadda uu bartayna waa kulliyadda maamulka iyo maareynta. haddaba Sheldon markii uu Carabtii kala xasuuqay miyuu cafiyay Sacuudiga? Isagoo ka hadlaya waxa uu hadlay sida tan: waxaan u arkaa inuu yiri Sacuudigu inuu yahay waddanka labaad ee adduunka ee nabadda adduunka ka fakara marka laga yimaado Mareykanka. haddaba Sheldon markuu sidaa u ilaalinayo shacbiyadda Yuhuudda iyo Mareykanka, iyagu ma ogeeyeen oo ma ku jecel yihiin sida ahaa. Sheldon Adelson waxa ay ka jecel yihiin Donald Trump iyo Benjamin Netanyahu, labada shacab ee Yuhuudda iyo Israa'iil, waxaana ay u arkaan inuu yahay aabihii gobonimada iyo nabadda ay ku naaloonayaan. waxa uu tagaa bandhig kasta ama xaflad kasta oo weyn oo ka dhacaysa caalamka sida Yurub iyo Mareykanka iyo Israa'iil iyo wadamada kale ee adduunka. waxa uu leeyahay ciidamo bodyguard oo aad u badan, waxa ku baxa 3.7 milyan oo dollar ciidamadiisa bodyguard ee khaaska ah. wuxuu dhowr jeer isku dayay inuu dhowr jeer u tartamo doorashada madaxweynaha ee waddanka Mareykanka, balse uu ku fashilmay. haddaba daawada, haddii uu ku qanciyay barnaamijkan, fadlan adiguna nagu dhiirigeli like iyo share iyo subscribe haddii aad nagu cusub tahay weeyaan. haddii kale aad hore nagu jirtayna like nagu dhacsi. intaa waxay nagu dhamaaday barnaamijkeena amuuraha caalamka. maanta laga bilaabo waxaan ku wada socon doonaa channelkeena Farsamo Films.